kulanti wacan ku soo dhawaada mid ka mid ah sheekooyinkeenii taxanaha inoo ahaa. Maanta sheekadeena waxaa ciwaankeeda ku hadlaysaa Faaliye iyo Abeeso. Beri ayaa talada loo dhiibay boqor aan kalsooni badan ku qabin qadarka iyo qorshaha Alle. Faaliyayaashii magaalada ayuu la shiray, wuxuuna yidhi, ninka sheega waxa guga dambe dhacaya waxaan la siin doonaa muud iyo nolol midka uu jeclaado. Faaliyayaashii ayaa talo ku caddaatay oo mid kasta tuur iyo tirbiic isu yeelay si uu arrinta u maareeyo. Mid ka mid ah faaliyayaasha oo isagu garan la'aa waxa uu sameeyay baaduuda galay. Abeeso ayaa ka soo horbaxday, way la hadashay oo waxa ay ku tidhi, waan ku arkaa in aad warweersan tahay, maxaa ku helay? Arrintii buu uga waramay. Markaasay ku tidhi, oo ma warcelintii weydiintii lagu weydiiyey baad garan la'dahay? Iyadoo hadalkii sii wadata baa tidhi, haddii aan kaa furto culayska ku haysta, maxaad iga siin doontaa abaalgudka uu boqorku idin ballanqaaday? Farxad buu kala badbatay, eebba kuma xilo, qayb ayaan ku siin wax kasta oo la i siiyo, ayuu ku yidhi. Waxa ay ku tidhi, kal dambe waa xilli colaadeed, nin walbow warankaaga afayso oo gaashaankaaga adkayso. Sidii abeesadu sheegtay ayay saadaashu u dhacday. Abeesadii oo sooryo iyo badhkeedii abaalgud doonaysa ayaa u timid faaliyihii, si eebba ayuu ku rideeyey oo abaalgud uga dhigay. Dirqi ayay kaga baxsatay oo god ayay markiiba madaxa la gashay. Gugii xigay buu boqorkii faray saadaal kale in ay furaan. Faaliyihii oo ka murugaysan abaalxumadiisii ayay abeesadu mar labaad ka soo horbaxday. Sidii hore kale ayuu ugu waramay dhibkii haystay iyo abaaldaridiisii. Markaas bay ku tidhi, aniga ayaa ku dhaami doona oo kalkana ku saadaalin doona. Guga bilaabanayo wuxuu noqon doonaa abaar, ee keedsada waxaad gacantiina ku jira. Mar kale ayay saadaashii abeesadu dhab noqotay. Kolkaasna wuu qadiyey abeesadii oo waxba ma siin, sababtuna waa gunnada la siiyo oo ahayd mid isaga uun ku filan. Gugii saddexaad ayaa haddana uu boqorkii weydiiyey faaliyayaashii. Hagarli'i ayay ugu sheegtay mar saddexaad in barwaaqo iyo nimcada la durduran doono guga soo socda. Wuxuu doonay inuu wax ka siiyo abaalgudkii 2 jeer ee hore ka qadiyey. Hase yeeshee way ku qanacsanayd, waxayna ku tidhi, gugii colaadeed dhankii naceebka ayaad iigu dartay, ceebna ma aha. Abaartana waa la is wada qadinayay, ceebna ma ahayn. Maanta waa barwaaqo, qofna waxba ugama baahna. Sheekadeeni taxanaha inoo ahayd maanta halkaas bay noogu eg tahay. Halkaa ha inoo joogto sheekooyinkeeni taxana ahaa. Sheekooyin kaleento aad u xiiso badan ayaan idin soo wadi doonaa. Waxaan idinka codsanaynaa inaad u share gareysaan walaalaheena jecel sheekooyinka si ay u gaaraan page-kana hala follow gareeyo. Waad ku mahadsantihiin. Soo dhawaada.